kulan waxaan wanaagsan qaarta wada nagala socotay meel walba joogtaan iyo si walba noo maqlaysaan ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo ku eegi doono musiibada ku habsatay reer Falastiin iyo masjidka barakaysan ee Al-Aqsa ee maalmihii ugu dambeysay ay rabshadaha xoogan ka wadeen ciidanka gaarka ee Israa'iil iyo sidoo kale taba ciidamada militariga Israa'iil oo u waarsanahayay dadka ku cibaadeysanaya masaajidka dhimashada oo ayadana kor u kacday ayaan idin soo gudbin doonaa iyadoo shalaytana dhaawacu uu marahayay in ka badan 200 oo qof hase ahaatee dhimashada oo shalay lagu tilmaamayay inay 20 ahaayeen ayaa iyadana kor u kacday oo idin soo gudbin doonaa dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee halkaasi waxa sidoo kale taan idin kula wadaagi doonaa guryaha magaalada Qudus ku yaalay ee reer Falastiin oo ayadana si xoog ah u duminahayaan ciidamada oo cagafyo lagu duminahayo dhacdooyin la yaab leh oo xanuun badan oo muslimiinta halkaas ku sugan ay ku hayaan ciidamada Yuhuudda ayaan idin la wadaagi doonaa hadii ay yiraahdo waxa sidoo kale warkeena aad kaga bogan doontaan dalalka carabta maxay ka dhaheen arinta lagu hayo xasuuqa shacabka reer Falastiin ee ay ku hayso ciidamada Yuhuudda waxa sidoo kale aad ku maqli doontaan warkeena dhacdooyinkii ugu dambeeyay iyo war ka soo baxay Israa'iil oo ayadana lagu tilmaamay inay ahaayeen ciidamada dadka ay beegsanayaan dad al-qaacida ama argagixisa qodobadaas oo faahfaahsan ayaad warkeena kaga bogan doontaan balse si share gareeyo like saara barnaamijka like ta meel fog ayay muuqaalka gaarsiinaysaa oo u heeli walaalada dhibaataysan ee muslimiinta ee xilligan Ramadan lagu jiro ay dhibaataynayaan ciidamada Yuhuudda sida arkaxan darada ay u weerarayaan ee ay u leynahayaan ee ay ugu diidan yihiin inay masaajidkooda ku cibaadeystaan ee guryahoodana laga barakicinayo si share gareeya oo la wadaaga saaxiibadiina kaleeto si loogu duceeyo oo walaaladeena loo garab istaago reer Falastiin waxa sidoo kale aad ku share gareyn kartaan barnaamijkan WhatsApp gruubyada iyo meelaha kaleeta ee la iskugu imaado si loogu duceeyo walaaladiina daawadayaal idinkana aad baan idinka mahad celinayna like-ta iyo share-ta iyo garab istaaga aad walaaladiina aad garab istaagaysaan waxa barnaamijka ay kula sugan Maxamed Wacane oo isha ku haya xaaladihii ugu dambeeyay ee dalkaasi iyo xasuuqa ba'an ee shacabka lagu haya reer Falastiin waxana soo dhow aad baad ma santahay Santiago walaaladeena reer Falastiin waan ogeyn dhibaatada ay ku soo jireen muddo dheer ay ku soo jireen bal maanta maxaa ugu dambeeyay dhacdadii xanuunka badnayd ee shalay lagu sameeyay iyo dhaawacii faraha badnaa layntii xasuuqi iyo dhibaatadii banayd ee dadka iska cibaadeysanaya masaajidkooda iskaga jira ay kula kaceen ciidamada Yuhuudda bal xaalku seeya Santiago aad baad ma hasan tahay waxaan sidoo kale u mahad celinayaa daawadayaasheena halkan naga daawanayo ee ugu xiran intaas kadib weerar lagu tilmaamay mid bahalnimo ah ayaa ka dhacay masaajidka weyn ee Al-Aqsa ee magaalada Qudus waxaana haatan socdo dad guraynta iyo sidoo kale dadkii dhibaatadu ay ka gaadhay sidii lagu dabiibi lahaa intooda dhaawaca dabcan nimankan ciidamadan Israa'iil markasta waxay ku soo qaadaan dagaal weerar wuxuushnimo ay ka geystaan goobaha lagu cibaadeysanay sidoo kale goobaha ay dadku iskugu imaadeen ayagoo u cuskanayo xeerkan argagixisada ee islaamofobiyada ee dunida laga abuuray arintani waxaad moodaa inay gaadhay meel aad u fog ayadoo ummadii muslimiinta ahayd ee bishan Ramadaan ku cibaadeysanaysa masaajidada kala duwan ee dalka Falastiin in gabi ahaanba ay weerar xun ay ka geysanayaan ciidamada Yuhuudda waxaan ogeyn bilowgii bishan inay jireen kooxo ay ku sheegeen inay ahaayeen Falastiiniyiin oo dagaalo kala duwan iyo sidoo kale weeraro ka geystay magaalada Tel Aviv ee caasimadda Israa'iil waxayna arintaasi keentay in weerar argosnimo loo maleeyay ay tahay midkan hadda masaajidka lagu soo qaaday ee dadka aadka u tira badan lagu laayay arintani waxay ahayd in ururka Hamas iyo sidoo kale dawladda Falastiin ay ka fiirsadaan bishan waa bil barakaysan dadku aad bay u dhibaataysan yihiin waxaa jira sixir bar weyn oo ka dhashay dagaalada ka socdo dunida inteeda kale arintani waxay marka ururka Hamas inaysan wax faraq ayna qaadin ayadoo ay jirto dhagar ay maleegayaan Yuhuudda oo ah in bisha Ramadaan ay u arkaan bil cibaado ah haday laayaan muslimiin aad u tira badan marka arintaasi ayagu uga faa'iideysanayo ayay weerarada xataa kuwa ka geysanay magaalada Tel Aviv ma ahayn ururka Hamas oo way iska fogeeyeen in ayagu ay ahaayeen dadka weerarka geystay weerarkan waxa isku geysteen waxay ahaayeen bal leeyahay ciidamada Yuhuudda oo dhinaca bidix xigo ciidamada mucaaradka fog ee rabo inay laayaan muslimiinta ee ay ku weyntahay cuqdada weyn ee u qabaan muslimiinta ay ahaayeen bal yiri waana urur ka dagaalamo
gudaha dalka Israa'iil ayaa lagu sheegay marka Israa'iil ayadoo ururkaasi beeninayso dhanka kalena u saarinayso dhibaatadii ka dhacday magaalada Tel Aviv inay ahaayeen ururada muslimiinta ee ka dagaalama gudaha Falastiin iyo gudaha Israa'iil ayaa waxay weerar xoogan ku qaaday masaajidka weyn ee Al-Aqsa waxaana lagu dhaawacay in ka badan 200 iyo konton in ka badan ilaa 280 ayaa lagu qiyaasay dad aad u tiro badan oo 400 lagu qiyaasayna waa ay dhinteen intooda badan marka dhibaatada halkaas ka dhacday waa dhibaato aad u adag dhamaana baraha bulshada iyo sidoo kale TV-da waaweyn ee caalamka waa ay soo qaadanayaan musiibada halkaas Israa'iil ay ka geysteen walow wadamada Carabta iyo sidoo kale jaamacadda Carabta aysan wax baaqa aynan ka soo saarin oo ku aadan arintan loo geysanayo walaalaheena Falastiinta laakiin ummadda Soomaaliyeed sax aad ayay ugu amaanan yihiin markasta garab istaaga ay u muujiyaan walaalahooda iyadoo aan ognahay in dawladeenan Soomaaliyeed ayna ahayn dawlad maanta ka qayb qaadan karto ama caawin karto walaalaheena muslimiinta ee lagu dhibaateynay halkaas laakiin Soomaalida waa wadanka kalita ama waa ummadda kalita ee dhibaato wadan muslim markay ku dhacdo ka dhiidiyo haday noqoto codkooda oo yani maxaa la dhahay hadii xumaanta aadan ka sugan inay ka hadlaan aad u jecel marka arintaasi ayaa haatan ka taagan gudaha wadanka Falastiin waxaanu iskaashiga khaliijka iyo GCC iyo balaadi kale ee Carabihi iyo wadamadii waaweynaa Sacuudiga horkacayay xagee ku dambeeyeen wadamada Sacuudiga intooda badan waxay ilaashadaan danahooda khaaska ah sida aad ognahayba wadankan Yemen markii ay dagaalku ka dhacayay waxa lagu duulay oo wadamada khaliijka intooda badan ay isku bahaysteen in lala dagaalamo wax la yiraahdo ururka Xuutiyiinta oo ah urur Islaamiga oo laakiin shiica marka hawlahaas oo kale markay imaato way dagaalameen laakiin markay imaato in wadan muslimiina ay ku soo duulaan gaalo arintaasi gadaasha dambe ay gaalada ka fadhiistaan marka wadamadani inta badan waxa lagu eedeeyaa inaysan u heelinin Falastiin iyo arrimaheeda inta badan kama ay hadlaan mana hagaag away hay'adii xuquuqul insaanka maxay tahay guryahan Israa'iil ay cagafta ku duminayso ee dhibaatada ba'an ay ka jirto xuquuqul insaanka hay'adahani u qeyliyay waxa la sameeyay dhibaato ka baxsan bini'aadanimada maxay uga hadli laayihiin sadwaqtayba xuquuqul insaanku waxay qabtaan wixii ka soo horjeedo marka gaal iyo muslim noqoto inta badan kama hadlaan arintani marka xuquuqul insaanku ururkan isku magacaabay waa urur wadamada waaweyn intooda badan gaalada ayaa u badan marka arintani waxaad moodaa inaysan ayagu inta badan aynan ka hadlaynin kamana hadlaan oo marmar ayay ka soo saaraan baaq ku aadan in Israa'iil ay geysatay falalka dhan bini'aadanimada laakiin inta badan laguma qabto oo laguma jaaj gareeyo وحقاك maalintii saddexaad hadda waxaa socdo mudaharaadyo looga soo horjeedo falalkan argagixisnimada ciidamada Yuhuuddu ay ku sameeyaan shacabka ku cibaadeysanaya masaajidka Al-Aqsa iyadoo baaqyadaasi hadda socda iyo mudaharaadyadaasi maxay ka dhaheen caalamku maxaase ka soo baxay caalamku intiisa badan waxa ay ka deerinayaan dhibaatada mar walba ka dhacayso ama lagu la kacayo ummadan maxaa la jiray magaalada Qudus iyo sidoo kale Falastiin laakiin inta badan wax action oo ay ka qaadayaan ama tilaabo ay ka qaadayaan ma jirto marka laga reebo inay baaq ay soo diraan aan waxba ka jirin marka mudaharaadyadu way socdaan waxayna ku muujinayaan codkooda in dhibaatada lagu hayo Israa'iil ay ku hayso gudaha wadanka Falastiin inay ka dhaafto in ummadda Falastiiniinta ay u baahan yihiin cadaalad rasmi ah oo dunidu ay ka midaysan tahay laakiin ma jirto wax talaaba oo ilaa xilligan adduunku uu ka qaadayo arintan Israa'iil ay kula kacday ummadda Falastiiniinta aad iyo aad baad u mahadsan tahay taasi wuxuu ahaa Maxamed Wacane oo inoo faahfaahinaya xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka Falastiin iyo shacabka dhibaatada ba'an lagu haya ee reer Falastiin ee halkaasi muddada dhowrka qarni ah lagu hayo dhibaatada bini'aadanimada ka baxsan ee ciidamada Yuhuuddu ay kula kaceen dawada lidikana waad mahadsantihiin siina sheergareeya barnaamijka waana sii wadi doonaa insha Allah barnaamijyada ku aadan waarsiga shacabka reer Falastiin ee ay ku hayso Yuhuudda waan idin soo gudbin doonaa wararka xiga ayaanad kaga bogan doontaan nagu xidhnow oo nagu soo biir aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa haddii aad horay noogu xidhnayd